maanta waa maalin weyn oo ilaahay looga mahad celiyo inaan soo gaarnay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. Bilaha soo socda ilaahay idinkii waxaa la bilaabayaa qodista ceelkii ugu horreeyay ee shidaal ah ee Soomaaliya laga qodo. waxaynu horumarinaynaa kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin jidadka, garoomada diyaaradaha, dekadaha oo lagu daray saldhig laga gano dayax-gacmeedyada spaceport oo ah kii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika laga dhiso. kalfadhigeenna toddobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waa noo furan yahay.